السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن أصحابي ميلكستود نغا داوريسان كسو دوادا مركله iyo mid kamida barnaamijyada aan idinku talagalay hadaba qodobada barnaamijkan idinku hayo waxa kamid ah Trump iyo kooxdiisa oo yaaban maxaa dhacay suuqyadii caalamka oo iska dhaga tiray cunaqabataynta Mareykanka uu saaray Iran waa markii ugu horeysay suuqyada waaweyn ee caalamku ay awaamirta Mareykanka iska dhaga tiraan ma waxa la gaaray waqtigii Mareykanka uu ka bixi lahaa saaxada oo waqtigiisu soo dhamaaday haddaba warbixin la yaab leh oo arinta laga qoray ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa xog qarsoodiya oo goordhow ay baahiyeen warbaahinta Iran kulanka iyo message-ka ama fariinta uu xambaarsanaa magaalada Tehran kulankii ku dhexmaray madaxda Iran iyo taliyaha ciidamada Pakistan qaybaha dambana waxaan idinku hayaa Mareykanka oo carada darteed cunaqabatayno gaar ah la beegsanaya madaxda ugu sarreysa ciidanka ilaalada kacaanka Iran haddaba waxyaabo la yaab leh ayaa adduunkan ka dhacaya adduunyadan way isbedelaysaa awaamir fara badan oo markii hore dunidu ay si fudud ku qaadanaysay hadda dhaga adeeg macalinka weyn warkiisa ciduu ku socdo ma jirto waxa aragteen oo boota ah oo hanjabaad ah oo uu dirayay Trump iyo wasiirkiisa maaliyadda waxa lagu leeyahay haday maanta iska dhaga tireen aswaaq ama suuqyadii caalamka ugu waaweynaa naga daadeen ka warkiisa adduunku marka aa ka sii socoto oo aakhira u socotidna ilaahay garabkaaga markuu ka baxo waa sii degaysaa sideedana waxa ogaataan wax walba oo cirka aada dhulkay ku soo noqonayaan America amarkeeda wixii la qaato dhaqaalaha adduunka naga kontroolna dhahaan maanta suuqyadii caalamka waxay marayaan inay iska jaahil tiraan iska dhaga tiraan waxa uu Trump ku hadlay wax la yaab la socda haddaba warbixin cajiiba ayaa waxa ka diyaarisay goordhow telefishinka Al Jazeera suuqyada caalamku waxay si weyn isaga dhaga tireen oo ay uga biyadiideen cunaqabataynta Mareykanka uu ku soo rogay Iran suuqyadu waxay si weyn iskaga indha tireen cunaqabataynta cusub ee Mareykanka uu saaray Iran iyadoo qiimaha saliidda uu hoos u dhacay dahabka oo aan la joojin karin ayaa isaguna waxa la sheegay inuu sidiisii yahay dollarkuna uu in yar kor u kacay haddaba arrimahan oo dhan waxa la sheegayaa saamiyada Aasiya oo ku gacan oo markaasi ku ganacsanaya meelo cidhiidhi ah iyadoo maalgashigu uu hadda caadi yahay meelo kala duwan haddaba mustaqbalka saliidda ama shidaalka ayaa waxa la sheegay in uu hoos u dhacay 3% 89.30 fuustadii haddaba waxaasoo dhan waxa leeyahay waxay astaan u yihiin inaan marnaba la dhagaysanin waxa uu ku dhawaaqayo Mareykanka haddaba falanqeeyaasha dhanka badeecadaha iyo ganacsiga ayaa sheegay in suuqyada uusan wax saameyn ah ku yeelan hawsha Washington ee markaa lagu xoojinayo cadaadiska dhaqaale ee lagu saarayo Iran iyagoo intaa ku daray in dadaalada Mareykanka ee lagu boorinayo in lala hawlgalo oo lagala shaqeeyo arintanna ay hadda u egyihiin kuwa halbacaad lagu lisay mawjeedaan waxay ku leedahay Al Jazeera qobarada dhaqaalaha waxay leeyihiin way iska dhaga tireen suuqyadii caalamku waxay iska dhaga tireen cunaqabataynta ninka la ordayo wax isbeddelay ma jiraan wax walba sidoodii awal ninkan markuu hadlo wax badan isbedeli jiray soo asagu rabay wax walba noqon jireen waa laga daba nacamlayn jiray macna hadda nacamlayn ma jirto xataa dawladihii uu la hadlay wax badan kama soo qaadin hadalkiisa waa arkaysay Shiinaha barnaamijkii hore ku soo qaadanay waxay yiraahdeen adeerow anagu warkaaga kuma jirno nimankan xiriir ganacsi anaga dhaxay waxaad sameyn kartaa sameey ma jarayno xiriirkeeda hadda anaga cunaqabatayna soo saari kartana soo saar waxaan kala helnaa leenahay al-umum marka meesha maxay idin kaga baxaya adduunyadu sidii hore ma aha way isbedelaysaa
macalinka weyn warkiisii in la iska diido ayay maraysaa. awalna macalinka weynaa yiri yaa la dhihi jiray. waxaasoo dhan yaa keena marka waa la iska dhiciyey macalinka weyn. iiraana kabaha la gashatay, tabartiisa adduunka tustay. marka maxaa adduunyada marka maxay isku wareerinaysaa? sheekadaasu marka wixii kasoo kordha cunaqabatayntaan adduunka wareerisay iyo meesha marxaladeedu marayso warkaasaa ugu weyn. dhanka kale marka sidaa lagu sameeyey ninkii Trump ahaa wuxuu cunaqabatayno saaray madaxda ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan isagoo ka caraysan wixiisii oo socon la markaasuu meel walba ku boodaya. haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray telefishinka Al-Arabiya goordhow wuxuu leeyahay Mareykanku waxa ay 10 milyan oo dollar saarayaan qofkii soo gudbiya macluumaad ku saabsan 5 hogaamiye oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan. haddaba marka warbixintu way sii socotay waxa la leeyahay Mareykanku waxa ay bixin doonaan lacag gaaraysa 10 milyan oo dollar cid kasta oo warbixin ka keenta 5 hogaamiye ee waaweyn ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan. haddaba raggan sida weyn loo raadinayo ee la daba socdo waxa ugu horeeya taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ninka la yiraahdo Ahmed Wahidi, madaxa sirdoonka ciidankaasi Ali Abdul Ilaahi, iyo madaxa dhanka abaanduulka kii hore wuxuu abaanduulka kana sirdoonka waayo waxa la yiraahdaa Majid Khadimi, iyo mas'uuliyiin kale oo iyaguna qaabilsan dhanka diyaaradaha droniska iyo dhanka electroniga weerarada lagu qaado ee burcadda internetka la yiraahdo. dhammaan arrimahaas oo dhan dadka qaabilsan ayuu wuxuu ka rabaa macluumaad inuu 10 milyan oo dollar ku bixinayo. wuxuu leeyahay raggaas macluumaadkooda meelaha ay ku hoydaan waxa ay sameeyaan macnaha weerar gaadma ama ku dili rabaa muxuu sameey rabaa lama yaqaan. marka wuxuu leeyahay 10 milyan oo dollar ku bixinaa qofkii macluumaad ama xogo ragga ku saabsan ee keena. waana ragga ugu sareeya ciidamada ugu hadda la wada magacaabay kulligood taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan, abaanduulaha ciidanka, waxaasoo dhan waa waxa ayatullaahiga uu dhawaan magacaabayo waay. marka xaalku marka halkaas uu maraya. dhanka kale taliyaha ciidamada badda dhanka ilaalada kacaanka Iiraan isaguna waru soo saaray wuxuu leeyahay annagu meeshii ugu dambeysay diyaar garowana amar bas sugeynaa cunaqabatayntan annagu waa jabsanaynaa maraakiibtan meeshaan yaala waraan ka keenaynaa laakiin waxaan sugaynaa wadaadka ayatullaahiga warkiisa sugaynaa. hala adeegto hadduu yiraahdo drones dooma dheereeya wax walba maraakiibtan annaga warka keenayno leeyahay. wala suboteena meeshaan hawshaas halkaas iyadana baraysaa. way qodobka ugu dambeeya barnaamijku waxaan ku soo qaadanaynaa qodobkan waa muhiim. saakayna waxbaan ka hadalnay taliyihii ciidamada Pakistan ee Iiraan tagay. Iiraan wuxuu ula tagay inay u hoggaansanto oo maartay Mareykanka waxa uu rabo la sameeyo oo Hormuz la furo oo iyaduna cunaqabataynta loogu hanjabayo waxaan laga qaado. laakiin goor dhaweyd Al Jazeera waxay leedahay warbaahinta Iiraan xog heshay ku saabsan asagii fariinta keena fariin loo dhiib. fariin ka culus midiisa ayay Iiraan farta ka saartay. waxay tiraa dhageyso annaka dhaqaale iyo cunaqabatayn iyo naguma hanjabi karo ee annagu haddaan xaajoonayno Hormuz la furayo shuruudahan waa inuu ogolaabaa. ninkii Pakistaaniga uu yaabay American dhan oo fariin u soo diray oo la leeyahay American ma naqaan adii hadduu kula weyn yahay meesha rabta la aad intaan hadduusan noo fulin cunaqabatayna sheegtay cirkay dhulka soo dumiya hadduu rabo. way Pakistaaniyiinta laftirkooda 10 loo dhigayaa waa la barayaa. cid kasto oo Mareykanka kabaqaad u ahayd waxay arkaysaa hadda waxbay ka baranaysaa waxba la isbarayaa meeshaan. haddaba markaan idin tuso sheeko la yaab leh oo arrinkaa laga qoray. haddaba Iiraan wararka ka imanaya waxay sheegayaan Asim Munir ninka la yiraahdo taliyaha ciidamada waddanka Pakistan oo ayaa la sheegay inuu Washington u gudbiyay
shuruudaha rasmiga ee Tahraan ee ku saabsan marinbiyoodka Hormuz. wakaaladda wararka Iiraan ee la yiraahdo Tasniim oo soo xiganaysa ila ku dhow dhanka wada hadallada kooxda Iiraan u qaabilsan ayaa sheegay in Tahraan ay si cad u cadaysay mowqifkeeda iyo shuruudaha ku saabsan marinbiyoodka Hormuz waxayna farta ka saartay oo ay u gudbisay ninkan Bakistaaniga wuxuuna isaguna markiiba Washington u diray xuraadeen waxay isdaalinayaan meeshan cunaqabateen dad loogu hanjaba manihin hub aan haystaa waxna loogu hanjabayo male ninkan hadduu wada xaajood rabo shuruudahan hanoo ogolaadeen ninkii Bakistaaniga ahaa asagoo indhaha ka mirig siinaya u baxalalay marka sheekadaasa marka soo korortay wararkaas waxay kuwii ugu waaweynaa soo kornay waa la saayay adduunkan waa ujeedaan waxa waaye nin walba tabartiisa aan la istusinaya والله كتا إنك ترى ما وحنا نقوله ويا بنيا مات طلعتوا قاضبة هذا هو كبر إلهي متى على ذاتك إسكبرياء وحبال الله تصير يا مركا أكون كان إنه الله سبحانه وتعالى مأمره يا الله تصير يا موقتي وإسكبرياء طلعتوا قاضبة ومشغلين سوشة الدون كيورنا وحربا إنه قدروا إيران وح قدر ما مال الصغير إنه حلين نجت ما ضحدي والله هذا لو إسكندر تريان dagaal aan qaada duu nagta laga soo saaraya oday marka meel uu aadan male waa ismaadii markuu xilka qabsanay soo u booteenay ninkan iyo maanta marxaladda uu joogo waa kaaf iyo kala dheeri waay haddaba wuxuu cusub waa arki doonaa haddii alla idmo barnaamijyada kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka la garaya oo share garaya fadlan inta aan bar kale kulmayno meel kastoo aan laga daawanaysaan waxaan idinka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo